Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mar kale iyo lowdhanka oo halkaan kaga soo jeedi doonaa casharadii imtixaanaha ahaa mid ka mid ah. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay kumandayaasha bilowga ah ayaan qayb ka mid ah doonaa. Waxaan dabcan ka geli doonaa routerkan inaan ka bilaabno. Marka si aan u galno waxaan gelaynaa haddii la yiraahdo qaybta terminalka ayaan gelaynaa. Waxaan ku bilaabaynaa kumandaha koowaad enable la yiraahdo. Marka sidaan horeba kuu sheegay, kumandaha waxaad taabanaysaa si uu computerka kaga dhigo keyga la yiraahdo tab. Marka tabka ayaa taabanaysaa haddaad waalidka wataan ku bilow kaga dhigaya. Okay, enable markaan gaarno waxaan gelaynaa config ayaan leenahay t oo terminal u taagan. Marka waxaad taabanaysaa tab complete ka dhigaya. Marka waa tan waxay u taagan tahay configure. Marka haddaan dib kuu soo celiyo, intaa markaa wato taaban kartaa tiibka taabanaysan complete kaga dhigaya. Marka waa configure terminal. Inta markaad tiraahdo waxaan rabnaa sida halkaan ku aragtaan routerku ayaan doonaynaa in aan magac u bixino. Waxaan ka dhigaynaa router 1 ayaan ka dhigaynaa oo ah sida halkaan ku aragtaan routerkaas ayaan u bixinaynaa magacan. Hadda routerka ayaa ku qoran, marka R1 aan ka dhigaynaa oo u taagnaa router 1. waxaan isticmaalaynaa marka kumandahan la yiraahdo host name. host aad qoraysaa complete wuxuu isku darayaa qaybtii kale name. host name markaad tiraahdo waxaad qoraysaa R1 baad ku daraysaa, enter ayaad ku leedahay. isla markiiba soo aragtaan magacii halkaan router ku qoray. marka arkaysaa haddana aan u bixinay R1 oo router 1 u taagan. Okay, waxaad dib loogu soo laaban karaa laba qayba, dhowr qaybood dib loogu soo laaban karaa, laakiin qaybta ugu sahlan intaanaan gelin tan waxaad qori kartaa si aad uga laabto dib uga laabto qaybtaad uga baxdo exit ayaad qori kartaa. waxaad kaloo taaban kartaa control set oo ku keenaysa marka halkaan ayaa imaanaynaa si aan magaca kan routerkeed magaca ugu bedelno. isagana sida qaybtii kaleetaan tegaynaa. marka waxaan ka bedelaynaa magacii enable waan soo gaabsanay config t. okay, host name R2 aan u bixinaynaa. tan R2 ayaa halkaan soo baxday. marka waxaan u laabanaynaa dib aan u laabanaynaa local ayaan leenahay. halkaan markaan imaano
si aan u save garayno marka configurationka hadda aan soo sameyno magacaan ka bedelno si aan u save garayno waxaan leenahay copy prime start app config ayaan maanta leenahay enter aan leenahay marka okay aan ku dhihi doonaa okay enter aan maanta ku leenahay waa sidaas oo maaragtay ayuu configurationkii nagu save gareeyay marka waxaan leenahay show run si aan u aragno maaragtay configuration sameynay marka halkaasaad ku aragtaan hostname r2 halkaasaad ku aragtaan marka haddii aan qaybtaan maaragtay halkaan kaga gudubno oo aan u gudubno qaybta xigta waxaan dabcan command-yaashka intaan ugu gudbaynaa anagoo isticmaalayna windowskan marka waxaan tegaynaa command promptga tegaynaa command promptga waxaan ku qoraynaa marka dabcan waxaan doonaynaa inaan ogaano IP-ga computerkan ayaan rabaa inaan ogaano marka si aan u ogaano IP config IP config ayaan leenahay IP config markaan idhaahno enter aan ku leenahay qaybta koowaad waxaan aragnaa IP addresska computerkan ayaa aragnaa commandaha kale oo ku xiga haddaan sii guda galno IP config/all ayaan leenahay si aan usii ogaano macluumaad intaan ka badano waa inaan ku qornaa /all macnaha dhammaan macluumaadkan markaas maanta toos wada arkaynaa sida DHCP-ga dabcan haddaad horey maaragtay aad u daawateen cashadii hore soo sameynay horey aan soo sameynay waxaan configuration ku sameynay Windows Server 2002 alif R2gaas ayaan hore usoo sameynay marka DHCP-ga waataan configuration usoo sameynay marka wuxuu ka qaadanayaa computerkan wuxuu ka qaadanayaa IP addresska wuxuu toos uga qaadanayaa si dynamically ah DHCP-ga ayuu toos uga soo qaadanayaa marka serverkaas wuu soo qaadanayaa marka IP addresska dhammaan saan u ogaano marka macluumaadkaas ka dheeri ah waa kaas saan maaragtay halkan ku aragtaan waxaad halkan ku aragtaan serverkaas oo DHCP-ga ah IP addresskiisa inuu yahay IP addresska DNS-ka serverkana IP addresskaas u leeyahay marka macluumaad intii kasii dheeri ah ayaad sida halkan ku aragtaan maaragtay aan helaynaa marka
waxaan u gudbaynaa komandaha kale ee qaybtan ku saabsan ee saddexaad. intana u gudbo horta waxaan sameyneynaa okay horta komandaha kale gudbaynaa oo working gareyneynaa serverka DHCP-ga ayaa maaragtay IP address-kiisa working gareyneynaa 192.168.211.142 working gareyneynaa. marka waxaan u gudbaynaa komandaha dabcan afraad u gudbaynaa kii saddexaad hadda working gareyskaas noo yahay. komandaha afraad marka waxaan rabnaa maadaama IP address-ka uu kasoo qaadanayo DHCP-ga server DHCP-ga uu kasoo qaadanayo computerkan waxaan IP address cusub oo maaragtay u soo qaato. marka si aan u habeeno waxaan gelinaynaa IP config/release ayaan leenahay. waxaan sii deynayaa macnaha IP address-kaasoo maaragtay u gudbaya okay. sidaa markaan niraahno si IP address cusub u helo marka waxaan leenahay IP config/renew aan leenahay okay. waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa casharkeena imtixaanaha inoo ahay magacaabakaas aan ku qaadan komandayaasha basiga ah dabcan oo kala duwanay. marka tan iyo casharkeena xiga haddii la yiraahdo waxaan kaga tegayaa waa markay loo dhaafo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi